waxaan u arkaa waa arrin khalad ah, waa arrin lagu duusiyayo dadka sool iyo sanaag iyo cayn. waa dad Soomaaliya, waa dad u dhintay haddana weli u dhimanaya Soomaalinimada iyo midnimada Soomaaliyeed. haddii maamulka xamar jooga uu u arkay inuu cid kale wisaaya aan noqono oo cid kale uu na hoosgeeyo, waa nasiib daro. waxaana leenahay ma istaahilo arrintaas, ma ogolaanayno. waxaa xamar laga wadana kama qayb gelayno. waxay dantayadu noo tahayna meeshii aanu ka heli karno yaanu la raadsanaynaa. mudane waxaa jirta in goor sii horreysa aad sheegtay in aad wadahadal la gelayso Somaliland maadaama wixii aad ka filayseen aad ka weydeen dhinaca maamulka dowladda federaalka. maxaa hadda xagee idin marayaan wadahadaladaasi? wadahadalkaasi waa noo bilow, bisha 4 bayba bilaabmeen. maantana bishu waaba 10 baan u malaynayaa, waa wax wiig ka yar. wadahadalkaas mabda-iyan baanu ugu heshiinay, iyakoo Somaliland ah iyo annakoo khaatumo ah oo 2 maamul ah, inaanu arrimo badan baana dhex yaalla, inaanu isaga nimaadno. walaad xun, dad badan oo boqolaala labada dhinacba ka dhintay. ilaa haddana arrintu ma xasiloona. walwal badan baanuna ka qabnaa. waxaana hadday sii socdaan inay taaban karto annaka qura maahe, inay nabadgelyada aaggan oo dhan ay dadkaas uu ku fidi doono. waxaanu ka door bidnay inaanu Somaliland maamulka oo noo arka maamul kale ay daris yihiin inaanu isaga nimaadno, ka wada xaajoono. meel allaale hadda waxaanu isla ogolaanoona meel wada dhiganay ma jirto. laakiin waxaanu ku hiranaynaa waxa dadka shacabka iyaga sool iyo sanaag iyo cayn iyo shacabkaa Somaliland waxa u dana. waxaanu ku hiranaynaa nabad iyo xasilooni iyo dibubis iyo horumar. intaana xamar ka weynay ka soo quusanay. ma laga yaabaa inaad la midoodaan Somaliland oo aad ku biirtaan maamulka Somaliland? arrintaa kama hordegayno. waxaanu annaku hadda go-aansanay ma aha, laakiin wixii marba aanu u aragno danta dadka iyagu ay ku jirto, ilaa isticmaalka la dagaalankiisii, ilaa midnimada Soomaaliya. ummadda dhulkan ku noole mar walba hormood bay ugu ahayd, mar walbana iyakaa u dhimanayay. 10 kun baa kaga dhintay dagaalka Ingiriiska iyo Talyaaniga iyo Ethiopia lagula dagaalamayay. 100 kun baa hadda kaga dhimanaya midnimada Soomaalida inayan kala go-in. malooma oga. nasiib daro meeshaanuba islahayn. idinkaaba mutaysanaya bogaadin iyo waa mahadsantihiin. waxaanu mutaysanay in dad nala hoos dhigo. hadda waxaa la yidhi waxaan oo dhan ku shaqaynayaan waa 4.5. waxaad moodaa annaku 4.5ka xisaab aan ahaynba inna lagu dhaqayo. hadda waa laga yaabaa in la yidhaaho 4 wadaad iyo 2-3 oday oo meelaha looga gacan haadiyey yaa garoowe lagu hayaa oo sawir nimanka meeshaa joogaa iskaga qaadayaan. uray dadkaas waxay yihiin khaatumo way shirtay. 5 sanadood ugu dambeysay shireer baa ka socday. dadkana waxaanay go-aansadeen arrinay ka noqonayaanna maaha, cidna magan u noqon maayaan. second class citizen cidna uma noqonayaan. waxaanu ka xigaynaa inaanu nidhaahno inaanu turubkaa iska baandhayno. meeshay doonaysaba hana geyso. laakiin waxaanu annaka iyo Somaliland heshiis ku nahay. wadahadalkuba hadduu bilaabmay 6 casho ka hor baaba isoo kaayo horeysay inaanu isoo fadhiisano. wadahadaladana mudday socon doonaan. niyad sami badan iyo dadaal badan baana muuqda. kama hortegayno. meeshii ayna geyso wixii wadahadalada ka soo baxa. horay waxaan la dhuundhuumanaynana maaha.
cidaanu fasax uga qaadanaynaana ma jirto